kusoo dhawaada casharkeena labatoonaad ee ms excel. casharkeena waxaan ku arkaynaa qaab aad u maamulin karto haddii aad leedahay ganacsi. tusaale ahaan halkan waxaa noo qoran waxyaalaha la gado, halkan waxaa noo qoran qiimaha, then halkan qofka inta xababa markaa shayga uu ka qaatay. haddii marka waxaan isla arki doonaa discount hadduu jiro, qaab markaas automatic uu markaa excelkan uu kugu xisaabin doono ayaan arki doonaa insha allah. waan isla socono. marka hore waxaan samayn doonaa qaybahan lacagahan aan bedeli doonaa. marka waxaan samaynaynaa halkan price ka imaanaynaa, then waxaan leenahay equal, kadib waxaan dooran doonaa qaybtan oo b2 ah, then waxaan ku dhufan doonaa shift iyada isla qabanayna, kadib waxaan ku dhufan doonaa qofka inta xabo uu qaadan doono ama shop charterka qoranta, then enter alina account qaabkaas ayuu markaas noogu diyaarsan yahay. tusaalaha marka qofka haddii hadda uu qaato hal xabo oo kale, hal xabo ayuu qaatay qofkan inta run baa leedahay, kadib waxaa kusoo bixi doona qiimaha. haddii laba xabo uu qaato ka war ama saddex xabo uu qaato, laba xabo hadduu qaato inta leedahay, kadib waa ka lacagta $14 ayaa laga rabaa. marka kulli qaybahan dhan waa hadda saas ay markaasi formulahooda ama xisaabintooda kalkulatgarantooda ay ku fadhisaa. okay, hadda qaybtan si automatic ah isku bedelaysaa. qof hadduu imaado tusaalahaan uu qaato hal surwaal oo kale, then one ayuu qaatay, then qiimaha ayaa halkan kaga soo bixi doona. halkan 2 saacadood hadduu qaato tusaalahaan, kadib inta leedahay, kadib waa kan $60 ayaa laga rabaa. marka qaabkaas ayay markaasi price marka rasiisaas loo raadiyaa. qaabkaas ay automatic aad u samaysan kartaa. okay, now waxaan sameynaynaa marka subtotal kaan sameynaynaa. qaybtan qorantahay subtotalka ayaa sidoo kale formula u samayn doonaa. waxaan leenahay equal, kadib waxaan qoraynaa sum isku dar waaye, then qaybtan aan rabnaa inaan isku darno oo dooranaynaa, kadib enter leenahay, then saasay noogu diyaarsantay subtotalka. sidaas haddii tusaalahaan halkan waxay kusoo ziyaadaan, qofkan ayaa vesta ayuu gatay 3 xabo ama 2 xabo oo kale, kadib enter leedahay, so automatic halkan oo isbedelaysaa saa ujeedid. qaabkaas marka totalka subtotalkuna uu marka uu noogu formulas uu noogu hagaajisan yahay. okay, markaan waxaan ku daranaynaa discount. aan dhahno dukaanka alaabta dhan waxaa ku jirta marka waxaa jiro qiimo oo dhimis ama discount oo 10 ah. qaabka u xisaabin kartaa marka discount marka xisaabinaysa, waxaa leedahay equal, then bracket furi doontaa, kadib waxaad dooranaysaa qaybtan oo markaasi 10% ka dooranaysaa, then waxaa u qaybinaysaa 100 markaa u qaybisid, kadib bracketka afartaa soo xiraysaa. inta markaa samaysid kadib waxaa ku dhufanaysaa shift iyada isticmaali doontaa, then waxaa ku dhufan doontaa 136 oo subtotalka ah, kadib waxaa dhihi doontaa intana leedahay. hadda discount intaana la gaday, discountina waxaa la sameeyey 13.6 ayaa la sameeyey. marka qaabkaas ayuu markaas discountigana uu kugu xisaabin doonaa. markaas wax ku dartidna discountiga markaas uu isbedelaa asagana. qaabkaas ayuu markaas kugu xisaabin doonaa. okay, marka waxaa noo haray kaliya totalka bas noo haray. totalka sidaan ku heli karnaa marka maadaama discount la sameeyey, totalka sidaan ku heli karnaa. waxaan ku heli karnaa subtotalkii oo ahaa 174. markooda waxaa dhahaysaa equal, kadib waxaad dooranaysaa 174 oo laga jaray, waxaa ka jaraysaa inta oo markaas discount la sameeyey ka jaraysaa, kadib enter leedahay. then halkaas waxaad ku haysataa wixii lacag oo total aad ku haysataa. marka aad subtotalkaada iyo aad kala jarto discountkaada, waxaa kuu soo baxay totalka markaad aad haysatid. so halkan haddii isbedel uu imaado, toos ayuu markaasi isku bedeli doonaa isaga dhan. shaqadaada marka saas oo wadanaysaa, oo hadba inaad wax kale markaasi markasta qorto baanad kaliya waxaa samaynaysaa qofka ilaa halka waxaa noogu qoran halka waxaa noogu diyaarsan wixii la gadayay item price-ka ayaa noogu diyaarsan. halkan waxaa ku diyaarsan inta xabo oo qofka uu qaato. so labadaana isku dhacayaan, kadib waa kana saa ujeedada 7 ku dhufo waa 24. qaabkaas markaas uu shaqeynaya. salaada qofka imaaday wuxuu qaatay halkan 2 hadaan ka bedelno oo aan dhahno 4 oo kale oo enter aan dhaho, then soo jeedid automatic ayuu markaas wixii dhan isku bedelaan. marka qaabkan aad diyaarsan kartaa haddii dukaan aad leedahay ama haddii markaas ganacsi ku jirtid oo alaab aad iibinaysid, then aad u baahan tahay xisaab oo markaas si sax ah markaas isku keento oo waqti badan aan kaga bixin, qaabkan ayaa u diyaarsan kartaa. so markaan waxaan samayn doonaa waa design-kan ka bedeli doonaa xogo yaraan qurxinayna aan isla socono. okay, markood si aan u qurxino waxaan samayn doonaa markood qaybtan aan dooran doonaa, then waxaan tegaynaa view, kadib waxaan qaadi doonaa grilkan qaadaynaa saas noo noqdo. markuu sidaa noqdo kabacdi waxaan ka bedeli doonaa qaybtan kore ayaan kalarada iyo wax baan bedeli doonaa. so qaybtan kore ayaan waxaan soo gashan doonaa hal row insaada leenahay. marka dhahno insaad marka dhahno kadib wax yar aan soo weyneyno, then qaybta isticmaal markaan ka dhigno
kadib waxaan dooranaynaa ilaa inta waxaan dooranaynaa home aan tegaynaa kadib waxaan leenahay match then halkaan waxaan qori doonaa magaca dukaanka waxaan dhigaynaa Arfai shop oo kale okay kadib waxaan samayn doonaa farta ayaan bedelaynaa ama kulli hal mar aan doorano qaybta kulli dooro then waxaan samayn doonaa farta aan bedelno halkaan Arial aan bedelaynaa Arial then enter aan leeyahay kadib waxaan samayn doonaa qaybtan textka kulli markaa centerka dhihi doonaa kulli centerka inay joogaan raba then qaybtan aan usoo laabto qaybtan kore colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa guduud halkaan aan furaynaa then waxaan leenahay red aan ka dhigno kadib waxaan samayn doonaa farta waxaan u bedeli doonaa caddaan aan u bedelaynaa kadib farta waxaan ku samaynaynaa waxoogaa weyneynaynaa ilaa qadar intaas oo kale soo yaray kadib buul laga dhigo kaysaa hana ahaato qaybtan ku xigta aan tagno titlekan qaybtan soo dooro halkaan ifur then color waxaan samayn doonaa like this one kadib waxaan samaynaynaa farta waxaan bedelaynaa wayda oo bedelaynaa kadib waxaan ka dhigaynaa buul ka dhigaynaa muhiimadda waxaa waaye in waxoogaa ayaro qurxino okay intaan markaan samayno qaybtan aan rabaa inaan doorto qaybtan waxaan u bedeli doonaa number ayaan tegayaa kadib waxaan rabaa inaan sameeyo like currency inaan u bedelo currency aan u bedelayaa 2 decimal point okay waaye then saasaan leeyahay okay qaybtan ayaa ii hartay qaybtan idan colorka waxaan siin doonaa color yellow ayaan siin doonaa colorkan oo kale okay qaybtan sidoo kale idan waxaan siin doonaa colorkaas okay qaybtan oo ay qoran tahay subtitleka ayaa waxaan siin doonaa border oo qaybta hoose ah bottom ayaan rabaa qaybta hoose dadwan ahaa kaas ma la rabay then qaybta totalkan waxaan siin doonaa double ayaan siin doonaa isaga 2 xab ayaan ka dhigi doonaa waxaan leeyahay halkan waxaa iga fiirisaa bottom double border ayaan rabay then like that sidaas aan ka dhigo ayaan rabay okay qaybtan oo discount iyo markaasi numberkan waxaan samaynaynaa halkaan imaanina kadib waxaan dooran doonaa thick outside borders ayaan samaynaa okay hadda waa inoo diyaarsan yahay waxba kama dhino colorka iyo wax kasta waan bedelnay soo sidaan fudud ku diyaarsan kartaa haddaa u baahan tahay qaab yar xisaabaadka aad ku maamulato sidaan ayaad markaa u isticmaali kartaa haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu